guusha tartan cilmiyeedka dugsiyada sare ee Galmudug aqoon kaab waxa ay sida ku raacday oo kaalinta koowaad galay dugsiga sare ee Caaisha Gurceel halka uu kaalinta labaad galay dugsiga sare ee Gurmad Dhuusamareeb. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Galmudug ayaa sanadkan qabatay tartan aqooneed loo qabtay dhammaan dugsiyada sare ee ku yaala deegaanada iyo degmooyinka Galmudug. maamulka dugsiga sare ee Caaisha macallimiinta iyo ardayda ayaa munaasabad ballaaran oo lagu soo aadiyay xilliga tababarku kusoo dhaweeyay guusha dugsiga sare ee Caaisha ee degmada Gurceel oo ka guuleystay kaalinta koowaad ee tartan cilmiyeedka dugsiga sare ee aqoon kaab kaasi oo ay xalay soo gabagabeeyeen guddiga tartan aqooneedka dugsiga sare ee Galmudug. dhamaadka tartankan waxaa ku tartamay dugsiga sare ee Gurmad Dhuusamareeb iyo kale dugsiga sare ee Caaisha binta Abubakar Sadiq oo ay xalay guushu raacday tartankan oo ay ka qayb galeen dugsiga sare ee ku yaala deegaanada iyo degmooyinka kala ah Dhuusamareeb, Cadaado, Godin Labo, Bandiiraley, Caabudwaaq, Balanballe, Xeraale, Gaalkacyo, Galdogob, Galinsoor iyo Gurceel ayaa soo maray heerar kala duwan. iskuulka Caaisha binta Abubakar Sadiq ayaana ka soo gudbay wareegga gurubyada 16 sidii dhamaadkii soo kale afar dhamaadkii iyadoo ugu dambeyntii ay ku guuleysay tartan aqooneed ku dhaxeeyay ku dhawaad 40 iskuul oo ku yaala deegaanada degmooyinka ka tirsan Galmudug. dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Caaisha binta Abubakar Sadiq ayaana shan jeer tartamay tartan cilmiyeedka dugsiyada sare oo ay qabanaysay aqoon kaab. qaar kamid ah hoggaanka ardayda iskuulka Caaisha oo qayb ka ahaayeen gudoomiyaha guddiga ardayda iskuulka Caaisha, gudoomiyihii tartanka iskuulka Caaisha, qaar kamid ah ardayda hore uga baxday dugsiga Caaisha iyo soo kale qaar kamid ah ardayda haatan wax ka bartay iskuulka ayaa hambalyo u diray dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo soo kale ardayda iskuulka Caaisha waxayna iskugu hambalyeeyeen guusha ay ka gaareen tartanka ay qabatay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Galmudug. maantii saakay waxaan rabaa inaan halkaan uga hambalyeeyo ardaydan quruxda badan ee wajiyadooda oo ka muuqdo dhaldhalaalka waxbarashada loogana bartay markay joogaan meelaha maxfalada guulahan ay u soo hoynayaan deegaanka iyo iskoolkaba. ma raba inaan hadalkayga sii badiyo waxaan leeyahay guuleysta. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo maamulka iskoolkan Caaisha Professor Cabdinaasir Ciise Cali Carab oo run ahaantii naga dhigay arday waxbarata naguna hogaamiyay wadada saxan. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo macallimiinta sharafta badan ee iyaguna nagu tarbiyayay inaan guulo waaweyn ka soo hoyno meelaha mujtamaca ay ku soo kulmayaan aqoon-yahaniintu. dhammaan ardayda iskuulka Caaisha Primary Secondary School kuwa hadda xaadirka iyo kuwa aan xaadirka ahaynba sidoo kale waxaan rabaa si khaas ah inaan ugu mahad celiyo maamulaheena sharafta leh Ustaad Cabdinaasir Ciise Carab oo runtii kaalin weyn ka qaatay inaan noqono dad wax barta adaab leh aqoontooduna ay heerkan soo gaarto. waxaan leenahay maamule waxaan ku gudno abaalkaada ma naqaano laakiin qulubta ayaad nooga taalaa. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo runtii fursadan qaaliga ahna siisay ayadana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. sidoo kale waxaan rabaa si khaas ah ayagana inaan ugu mahad celiyo 24 arday ee aan gudoomiyaha u ahaay ee ku matalayay ardaydan halkan fadhida tartanka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare kana soo hooyay guusha mugga weyn leh. Macallin Umar Macallin Maxamuud iyo soo kale Macallin Cali Saalax oo kamid ah barayaasha iskuulka Caaisha ayaa dhankooda ka hadlay guusha ay soo hooyeen ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Caaisha binta Abubakar Sadiq. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh nagu kulmiyay halkan. ilaahaygaas ayaa mahad leh. waxaa sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iskoolka ayaan u mahad celinayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. waxaan marka idin dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantiin aad ka cabsataan oo ilaahay aan u laabanno. ilaaha mahad iska leh noo suurtageliyey guushan quruxda badan aan gaarnay. idoos ilaahay noo suurtagelinayna ma aan gaar lahayn. sharaftaas ilaahay iska leh. intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad noqo ilaahay guushan noo suurtageliyey. lambar 2 wasaaradda waxbarashada Galmudug oo runtii la dhihi karo waxay gudatay kaalin loo baahnaa. sidoo kale waxaan mahad celin rabaa maamulka sharafta leh ee iskuulka Caaisha iyo macallimiinta iyo dhammaan guuleystayaasha ardada 24 arday matalaysay iskuulka. Macallin Cabdinaasir Ciise Carab oo ah maamulaha guud ee dugsiga Caaisha binta Abubakar Sadiq ayaa dhankiisa ka sheekeeyay marxaladii uu soo maray iskuulka iyo soo kale dareenkiisa ku aadan inay ku guuleysteen tartankii u dhaxeeyay ku dhawaad 40 iskuul oo dugsiyada sare ah kuwaas oo ku yaala deegaano iyo degmooyin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. waxa weeye hawl meeshan waa ku bixinay waa sax
laakiin dadaalka meeshan ku baxay haddii weel celinaya uusan lahayn maanta meeshan lama soo gaarin. waxaan rabaa marka dadaalkaas inta ugu badan macallimiinta inaan uga mahad celiyo, sidoo kaleetana ardayda dadaalkii lagu bixiyey ku dadaala inay gacanta ku qabtaan oo soo muujiyaanna iyagana waa u mahad celinayaa. waxaan rabaa kaliya hadalkii aan sheegi lahayn, waxaan u malaynaa ardayda naguma baaqan, hore isugu sheegnay dadaalka meesha aad hadda soo gaarteen inaad kasii wadaan. runtii guushaana waa mid aan filaynay oo yacni wax lama filaana naguma noqon, sababtoo ah waqtiga iyo juhdiga aan kusoo bixinay ayaan ognahay. inkastoo nasiibkuna uuna saacidayo, haddana waxaad dareemaysaan iskuulku markii koowaad oo degmada uu kaalimo u keeno ama uu kaalimo galo ma ahan wax hadda isaga soo dhacay oo hadda yacni lagu soo baraarugana ma ahan, waa wax iskuulka dadaalkiisa uu hore usoo jiri jiray. ugu dambeyn xasan cabdullaahi warsame oo ah agaasimaha waxbarashada ee degmada Gurceel iyo sidoo kale Cabdullaahi Cali Cabdulle oo ah xubin ka mid ah wasaaradda waxbarashada ee Galmudug oo ayaguna ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada ee Galmudug waxa ay si wada jir ah uga hambalyeeyeen iskuulka Caaisha oo noqday iskuulkii kaalinta koowaad u galay tartanka dugsiyada sare ee Galmudug oo ay taabagelinaysa wasaaradda waxbarashada. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga Caaisha. waxaan rabaa inaan idin idhaahdo hambalyo. runtii waxaad noo soo jiideen sharaf iyo karaamo. aniga DO ahaan saaka waxaan isu arkaa inaan ka bedelanahay DO-yada kale ama gudoomiyaasha waxbarashada degmooyinka Galmudug inaan ka duwanahay aan saaka isu arkaa. waxaa kaloo rumayseen sheegashadii degmada Gurceel inay waxbarashada degmada u haysata ay tahay Galmudug tira iyo tayaba. awal wasaaradda waxbarashada qaybteena Gurceel waxaan sheegi jirnay inaan tira ahaan degmada ugu badan aan nahay, laakiin tay ahaan inaan degmada ugu fiican nahayna dugsiga Caaisha ka dhaweeyay. mar kale waxaan idin leeyahay dugsiga Caaisha Primary and Secondary School aad baad u mahadsantihiin. wasaaradda waxbarashaduna way si dhow ula socotaa dugsiga Caaisha. abaalmarinta guushan weyna wasaaradda waxbarashadan ka sugaynaa dugsiga iyo ardaydaba. sidoo kale waxaan ammaanaynaa oo shaqadiisa aan ku faraxsanahay maamulaha dugsiga iyo macallimiinta. maamulaha dugsiga Cabdinaasir Ciise Carab oo runtii ah maamule aad u karti badan shaqadiisana yaqaana. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo Cabdullaahi oo xafiiska waxbarashada igala tirsan degmada Gurceel oo runtii asna shaqo weyn ka qabtay tartankan socday bishaan la soo dhaafay. mahad waxay u sugnaatay horta Allah subxaanahu wa ta'ala inoo suuro geliyay amana makini annagoo wada caafimaad qabna inaan hanano kaalinta koowaad ee tartankaas. marka labaad waxaan rabaa inaan si qaas ugu mahad celiyo Ustaad Cabdinaasir Ciise oo runtii dadaalkii juhdiga halkaan uu ka bixiyay ay ka muuqato miradhalkiisii maanta halka kan la joogo. waxaan rabaa intaas qoraxa la fadhiya inkastoo dadka shucuurtooda iyo xamaasadda haysa maanta in qorx jirtay in kale aan la dareemin, haddana waxaan rabaa inaan si qaas ugu mahad celiyo 24kii arday kaalinta ka qaadatay ama geysatay in tartanka kani 36 iskoolka Caaisha u gala kaalinta koowaad. waxaan rabaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo ka xafiis ahaan nagu maamulkii degmada xafiiskii wasaaradda waxbarashada degmada ka socona kaashaneynana maamulka iskoolka. waxaan rabnaa 24ka arday galay tartanka sawiradooda iyo magacyadooda dhammaystiran maamulku noo diyaariyo. boorar aan soo daawacnayaan xafiiska degmada iyo kan iskoolka intaba ku dhiji doona haddii Ilaahay ma ahan dee runtii wax sahlan in 36 iskool oo iskool walba intaas oo kuna arday dhigato inaad kaalinta koowaad u gashid. sidaad qalbigeena u taabateen aad u muujiseen shucuurta deegaanka ay qalbiyeena ugu weynteen haddii Ilaahay idmo meelaha bulshadu ku kulanto oo indhahoodu ay arkaan sawiradiina ayaa ugu arki doonaa ballan aan qaadnaa haddii Ilaahay. Axmed Faarax Maxamed warbaahinta SMS Gurceel.